بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ilaahay baan u mahadnaqaynaa runtii shalay markaan garoonka diyaaradda ka soo degay niman akhyaaro halka igu soo dhaweeyay baa igu yidhi iskoolka ku talagal subaxda sabtida ahamiyadda aan ardayda siiyo dartood ayaa safar saaka magaalo inaan maro ahayd ininka dartii u baajiyey maxaa yeelay dhalinyaradu waa mustaqbalkii dadkeena waa mustaqbalkii dalkeena waddankan dadka hoggaankiisa qaban doona haddii ilaahay adduunyada sii daayo oo ay noloshu iska dheeraato laga yaabaa dadka iskuullada ka soo baxay inay hoggaanka ummadda u qabtaan maalin uun ahamiyadaasaad markaa noo leedihiin ininka dhalinyarnimaduna waa fursad uu qofku soo maro waa fursad la doonay dadku intaa ay fursadda haystaan inay ka faa'iidaystaan hadday fursaddaasi ay ku dhaafto ma soo noqonayso weligiin ma maqasheen oday 80 jir gaadhay oo 20 jir lagu soo celiyey ya teknolojiyadda adduunku ma sheegtay waxa noocaas ma sheegin afarta shay ee bini aadanka nolosha adduunyada ku qaraaraysa waxaa ka mid a gabowga iyo geerida iyo bugtaanta iyo baahida si kastoo bini aadanku ay horumar u sameeyaan afarta kama gudbi karaan gabow ma baabi'in karaan geeri ma baajin karaan baahina ma tirtiri karaan bugtaanna ma celin karaan maxaa yeelay afartaasiba daaqadda bini aadanka way ka baxsan tahay ma maamuli karaan iyaku marka ininku fursad waxaad haysataan xilligii dhalinyarnimada ayaad ku jirtaan waa fursad mar hadday ay ku dhaafto aanan dib kugu soo noqonayn marka fursaddan in looga faa'iidaysto wayaan nolosha adduunyada looga faa'iidaysto aakhirada looga faa'iidaysto diinta looga faa'iidaysto dalkaaga looga faa'iidaysto ummaddaad ka dhalatayna aada u faa'iidaysid nin oday oo sheekha ayaa beriga saacaddan la eeganaya ma jirayn dadku waxay ku xisaabtamayeen xidigaha iyo dayaxa iyo cadcaadda iyo waxaasaa waktiga laga dhex saaran jiray markaasaa sheekh hebelow ii joogsa buu ihi mid baa ihi sukaytaan markaa buu ihi saac cadcaadda igu socotay cadcaadda ii jooji buu ku yidhi wakti ma hayo weeyaan innakana zamankeenna dadkeena waxay ka maraysaa inay yidhaahdaan waktigan baas halkeen ku soo dilaa halkeen waktigaas ku soo dhaafiyaa in dadku zamankan ay waktiga un eedeeyaan mar ay waktiga caayayaan iyo mar ay waktigooga ku ciyaarayaan iyo mar ay waktigooga dayacayaan iyo mar ay zamanka ay aflagaadeynayaan ay leeyihiin waktigaas sidaa ii galay ilaahayna jala wacalaa xadiis alqudsi waa kii lahaa ina aadan baa i aflagaadeeyey ina aadanna uu idhibayaa baa ilaahay yidhi ina aadan baa i aflagaadeeyo waxay yidhaahdeen itakhada allahu walada ilaahay wiil buu yeeshay markaasaa ilaahay yidhi anigu layma dhalo mana dhalo cid kaloo adduunkan ilale oo ila sheeganaysaana ma jirte keli baan ahay baa ilaahay yidhi ina aadan baa i dhibayo way dhibayaanoo waxay igu dhibeen yasubu dahra haa zamankay caayayaan baa ilaahay yidhi wa ana dahru zamankuna waa aniga baa ilaahay yidhi uqallibu leyla wannahaar habeenkii maalinta aniga ayaa gagadinaya oo keenaya ilaa maalmuhu waxay ka samaysmaan waa habeen iyo maalin
toddobaadyadu waxay ka samaysmaan waa habeen iyo maalin biluhu waxay ka samaysmaan waa habeen iyo maalin sanadadu waxay ka samaysmaan waa habeen iyo maalin quruntu waxay ka samaysmaan waa habeen iyo maalin habeenkii maalintan ayaa keena ilaahay baa keena hadday saaka cadceedu ay dib u dhici lahayd xilligay soo baxaysay hadday waxa makhluuq adduunka joogo dhan isku yimaadaan cadceedda ma soo saaran karaan hadday cadceedu galabta dhici weydo halkaa la joojiyo haddii waxa adduunka bini aadan oqoon la isku yimaadaan cadceedda ma ridi karaan oo habeen ma keenan karaan habeenna ma samaysan karaan maalinna ma samaysan karaan marka ilaahay baa la xadiisal qudsigan ina aadan baa idhibaya way caayaya u aflagaadaynaya afkii ugu taagay oo zamankay aflagaadaynayaan zaman meesha ma jire waa aniga baa ilaahay yidhi zamanka xilliga iga xun wakhtiga halkaa i dhigay wakhtiga ii kaa qabtay haddaad ree hebel tihiin waa wakhtigiinnii wakhtiga baas baa halkaa i dhigo sidaa ii galay may wakhtiga waxba ha caayin amarka ilaahay baa iska leh haddaad faqiir tahayna faqriga ilaahay baa kuu qadaray haddaad qani tahay qinada ilaahay baa ku siiyey haddaad xoolo leedahay xoolaha ilaahay baa ku siiyey haddaad bukaan tahay bugtaanta ilaahay baa kuu qadaray haddaad caqli leedahay caqliga ilaahay baa ku siiyey hadday fahmadaadu ay furan tahay dee waa dadaasho fahmadaadana ilaahay baa kuu furo kugu garab galay marka waa inaad fahamtaa umuurta oo dhan ilaahay xaggiisa u noqonaysaa marka xilliga zamanku wakhtiganina soo maraya waa nicmad ilaahayna siiyey oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa nicmataani maqbuunun fiihimaa kathiiru min annaas alsixatu walfaraaq baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laba nicmadood ayaa dadka intooda badani maanta ay ka dagan yihiin waa labadee waa firaaqa gacan banaanida iyo caafimaadka buu rasuulku yidhi maqbuun waxaa lagu macneeyaa waa shay badeecad $100 la siinayey ayaad ku sii daysay $10 badeecaddii 80% markii gacantaada ay ka baxdeen mujtamaca ay gashay ee 20% ay ku hadhay baa lagu sheego lagu yidhi war imsaad ku iibisay dee waxaan ku iibiyey $10 markaasaa lagu yidhi war waa $100 xabadii waxay maraysay ninkan meel iska soo qabtay ma jirtaa may sidaasoo kale maanta wakhtiga bini aadamku qiimo ayuu leeyahay laakiin dad badan maanta wakhtigooga cilday ku bixinayaan maqaayad bay ku bixinayaan facebook bay ku bixinayaan yaa ciyaar bay ku bixinayaan qabyaalad bay ku bixinayaan yaa dan la-aan bay wakhtigooga ku bixinayaan oo waxay leeyihiin inamare wakhtigaansa soo dhaafinay maante bini aadanka agtiisa waxa ugu qaalisana waa wakhtigiisa weeyaan ogow marka labadaa nicmadooda ilaahayna siiyey caafimaadkana waa nicmo ilaahay bixiyo maanta intiinan dee waad caafimaad qabtaan oo xilliga waxaa tihiin haddii jakin iminka laynagu sameeyo jak up laynagu sameeyo 100% buu noqonayaa caafimaadkiinu laakiin xilli waxaad geli doontaa 45-50 jir markaad gaadhideed kor aad uga baxdid haddii lagu jeegareeyo oo dhakhtarku jakab kuu sameeyo in xanuuno badan lagugu soo saari doono oo lagu odhan doono macaan baad leedahay dhiikar baa kugu soo socda kolestarool iyo dufan badan baad leedahay caynkaa baad leedahay keliya xanuun baad leedahay beeryartaa ku yaraatay calooshaada halkaabaa xidhan keliyahaa ku xanuunaya xanuunkaa iska ilaali cunnadaa iska ilaali xilligan iminka ininku aad maraysaan waa xilliga wax walbaad cunayseen eed xilligaad doontaan aad seexanayseen eed intaad doontaan aad adkaysanayseen eed intaad doontaan aad fadhiisanayseen ee intaad doontaan aad lugayn karayseen marka nicmadda ilaahayna siiyey ka faa'iidaysta uga faa'iidaysta waa maxay waxa u horeeyaan uga faa'iidaysana nicmaddeena waxa weeyaan allaheena abuuray inaan garanno oon raalli gelinno oon caabudno oon isaga ka cabsoonno oo shukri aad la timaado noqoto addoon rabbigiisa u mahadnaqayo noqo toddobada ilaahay jalla wacala u hadhayn doono maalinka qiyaamaha waa maalinta hadhka alla mooyaane hadh kale uusan jirin waxaa ka mida buu nebigu yidhi shaabun nasha'a fii cibaadati illaah qof dhallinyaro ah oo xilligii dhallinyarnimadiisa ku barbaara ilaahay daacaddiisa xilliga dhallinyarada leeyahay waa qayb ka mida waalida baa layidhi dhallinyarnimadu waa qayb ka mida waalida oo xilligaa qofku waxba ma dhegaysto waxaa laga yaabaa wax walba inuu yidhahdo anigaa fahmaya anigaa soo qabanaya anigaa soconaya anaa qabanaya laakiin
xilliga qofka dhallinyarnimadiisa ilaahay uu toosiyey ee diinta iyo dhaqanka fiican ilaahay ku toosiyey qofkaasi uu libaanay ogaada maalinka qiyaamaha la qatan yahay la qaawan yahay ee bini aadanka korkooda cadaada la duldhigi doono ayaa ilaahay jalla wa ala todobada hooska ilaahay hoos joogsanaysa ayaa ilaahay uu ku daray nabigeena xadiiska sida uu sheegay marka fursadda aad haysataan uga faa'iideysta marka horeysa ilaahayna abuuray inaad garataan oo ilaahay aad adeecdaan oo diintiina aad qabsataan maxaa yeelay diinta asala walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina baa ilaahay iyo ha soo dhiman adoo islaama mooyaane iskuulka waa u soo kallahdaan laakiin haddaan ini weydiiyon inagu idhaahda kuma salaadii subax jamaca ku tukaday ma isweydiinaa war ma isweydiinaa ya soo sidaasaa ku dhaafaa sidaasaa ku dhaafayna allah ina asturo tacliim wanaagsan baad rabtaa soo maha mustaqbal wanaagsan baad ka fikiraysaa shaqo wanaagsan baad rabtaa inaad qabato hadhow markaad waxbarashada dhammayso reer wanaagsan baad rabtaa soo maha ilmo wanaagsan baad rabtaa soo maha dowlad wanaagsan iyo dad wanaagsan baad rabtaa soo maha haa waxa keliya kaa xiga ma taqaanaa inaad noqoto addoon ilaahay oo wanaagsan sida ilaahay doonaya un adigu yeel sidaad doonaysa adiga ilaahay baa ku yeelaya nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam nin baa seexday markaasuu saro kacay waagi markuu baryey markaasaa nabiga loo sheegay wuxuu ihi kaa xalay shaydaan baa labadiisa dhagood ku kaadshay buu rasuulku yidhi qofka salaada subax jamacan la soo tukan shaydaan baa labadiisa dhagood ku soo kaadshay buu rasuulku yidhi bal ka waran haddii qof bini aadana oo qofka bini aadanku waa daahir hadduu candhuuf kugu tufo ka waran qof bini aadana oo waxa ka soo baxaya afkiisa waa iska daahir weeyaan bal ka waran shaydaan qofka labadiisa dhagood ku kaadshina ila nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxa warray anigu dardaaray waxaan waa salaada lagu dadaalo xariga ilaahay qabso tacliintana waxbarashadu way fiican tahay ta diinta si fiican tan maadiguna maaragtana way fiican tahay inuu qofka muslimka aqoon yeesho oo wax u barto looma diidano laakiin waxa la diidan yahay inaad noqoto aqoonyahan ilaahay abuuray aakhiradiisa iyo diintiisa aan garanayn taa lama ogolo wanaad wax barataa oo noqotaa dhakhtar oo dhakhtarnimadaada dadkaaga iyo dalkaaga ummadaada aad wax ugu qabataa waa inaad wax barataa oo injineer noqotaa oo handasadaada dalkaaga iyo dadkaaga aad wax ugu qabataa waa inaad wax barataa oo noqotaa baylood diyaaradaha sameynaya ama diyaaradaha kaxaynaya waxbarashada aad baratay dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waa inaad wax ugu qabataa lama doonayo qofka muslimka inuu jaahil noqdo waxbarashadu waa min addiin ya bal nebi aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuuray ee malaa'igtu ay sheegteen inay iyaku cibaado iyo tasbiix iyo taxmiid iyo cibaado fiican ay leeyihiin markay sheegteen ilaahay nebi aadan wuxuu ku karaameeyey baa la cilmi buu ilaahay siiyey wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ikati faqaala anbi'uunii biasmaa'i haulaa in kuntum saadiqiin qaaluu subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana innaka anta callaamu lguyuub qaala yaa aadamu anbi'hum biasmaa'ihim baa lagu yidhi aadam calayhi salaam waxyaabaha ilaahay ku karaameeyey ilaahay ku maamuusay waxaa ka mida baa la yidhi waa cilmiga waxa adduunka yaallo oo dhan baa aqoontooda la siiyey nebi aadam keligii dhirta geedaha magacooga shimbiraha magacdooda dhugaha magacdooda buuraha magacooga dhulka magacdooda xayawaanka magacdooda waxaasoo dhan baa nebi aadan ilaahay uu baray malaa'igtii aadam wuxuu ku dhaafay aqoon buu ku dhaafay aqoon marka aqoonta ha ku dadaallo aqoonta waa la bartaa oo qalamka lagu bartaayo nabigeena suuraddii ugu horeysay maxay ka waramaysaa cilmi bay ka waramaysaa cilmi iqra bismi rabbika alladii khalaqa al-insaana min calaq iqra warabbuka al-akram alladii callama bilqalam callama al-insaana maa lam yaclam shanta aayadood baa qur-aanka ugu horeysay
shantuba cilmiga ka waramayaan marka aqoonta aan ku dadaalno han baranno waxa kale oo la doonayaa inaan maskaxdeena aan ka saarno wixii dalkeena baabiyay dadkeena qaxiyay wixii halka ina dhigay ee dawlad la'aan ina baday ee dadkeena lixda qaaradood ee adduunka ku kala firdhiyay cudurkaas waa dilaa waa kansar kasi khatarsan kansar walibana cudurka magaciisa ma taqaanaan waa qabyaalad qabiil maskaxdiina ka saara dadkii qabyaaladu ay ku jirtay way sii dhamaanayaan laakiin bariyahan social media-gana hurinaya wixii oo afuufaya kuwa social media-ga qabyaalada ka huriyana waa khatar weeyaan kuwaas إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم بإلهي كوا دونيا إن دتك مؤمنين مسلمين أي حمان تدحضوا ذكف ديان وحا أمن ماذا بابئينيا فسادك فذينيا حمان تكردينيا كوا جعل أمد إني كدح فافيان كدح فافيان إلهي قرآنك وحو كشك كواس يدون كان عذابين إليهين آخرنا عذابك ويناب إليهين بإلهي لذلك كدكتون هذا قبيالة يو فحشاقا حمان تنحن ميديا قدح سعوتا إلهي كبغا وواحد نغطانين للي يرأى أو دورسون أو أخلاق وناكسن أو عبادة وناكسن أو رقم وناكسن أو دلقاد وناكسن أو إذب وناكسن محايا لي آدابتا أي دين الإسلام كو آدو كهذا آدابتا حقوق ذا كهذا دين الإسلام والد كاغا حقيسة جار كاغا حقوق ذا إليهين معلق اسكولك كودغا حق أوليهي كقرآنك كودغا حق أوليهي ولال كاغا كاوين حق أوليهي دين تاني والدين حقوق ذا إلهي نقول إيهين نوع عبديسي هي حقوق ذا بني آدم كوي نقول إيهين انتبه وحان كود ذا لينا مدول بين الحقيسة اسكسينو قبلها ما شاء الله وحن لنا هاي إنكم وحاتهن مجتمعين وحدوتين وضبدحات ما أنت وحبرشات كجرتان لكن قبله بريته لسكسة وحبرته هو يوم بيكون بيسا هو الملأ أو حاصل أو الملأ أو أقل جوكتا أو أبد كيغا قرحسا أو بمركا ودن بيسا كودن بيسا قبله سكسة وحبرته مركا asalku halkaan u noqon gabdhuhu noqonayaan waa aqalka waa guriga waa dhaqanka wanaagsan baan ku dadaalaynaa xishoodkaan ku dadaalaynaa nabi muuse calayhi salaam markii gabadhii shucayb u dhalay la siiyey ee la yidhi 10 sano adhiga markaad raacdaan gabadhayda kuu dhisay buu ku yidhi uu ogolaaday nabi muuse gabadha 10 sano inuu gabadh 10 sano adhi uu jiro inuu gabadh ku guursado gabadha wuxuu ku qaatay nabi muuse baa la yidhi ma ahayn qurux ma ahayn qabiil iyo dhaqaale lahayde waxa uu ku guursaday baa gabadh xishood badan bahay waa ka ilaahay kaga waramay suurada fajaa'atu ihdahuma tamshi ala istihya midkood ayaa u timid baa ilaahay yiri iyadoo u socota nabi muuse yeedhada aabaheedu u yeedhay iyadoo xishoonaysa baa ilaahay yiri xishood gabadh xishood badan markuu arkay iyo waalidka dhalay markuu arkay salaaxiisa iyo diintiisa gabadhaasi nabi dhan oo nabi muuse oo ilaahay hadalkiisa adduunka dusheeda ku maqli doona ayaa ilaahay reer uga dhigay baa leeyahay marka gabadhuna waxay ku qurux badan tahay waa akhlaaqda waa xishoodka waa asturka ilaahayna azza wa jalla ha inagu anfaco dambigeena Allah dhaafo dambiga waalidiinteena Allah dhaafo waxbarashada aad haysana Allah inay barakayade anu saasan nigu ducayn dadaala oo masaajida iyo dacwada iyo khayrka iyo quraanka adoo maadiga dhiganayo cidna ka mancan maysa diinta barashadeeda waxa laga yaabaa 8 saac inaad wax barato maalintii 8 saacana inaad seexato 8 saac kale halkeed geyn markaa 8 saacadood kale masaajidkaaga ku xidhnow oo culimada wax ka baro oo adoo maadiga dhiganaya oo secondary school dhiganaya caalim waad noqon kartaa xaafid al-quraan waad noqon kartaa arday waxaan naqaanaa reer Jabuuti oo jaamacadaha ay dhigtaan adana quraankii bay xifdiyeen bisha Ramadaanna waa aimo masaajid tujiyaan waa dadaal bay ku xiran tahay waa sidaad inuu u dadaashaan inaga laakiin xilligan imika waad ku soo hagaagteen waa xilli adag oo Facebook iyo balaayo iyo Instagram iyo shar oo dhan balaayo la soo dhaxgeliyay oo gacmaha la inoogu dhiibay aad ku soo hagaagteen oo oday iyo islaaniya inanba indhihi dhagihii bay naga baabay Ilaahayna asturo ilaahayna hana ilaaliyo
intaasaan kusoo gabagabayn. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.